محمد علي oo noqday qofkii ugu horeeyay Soomaaliyeed oo soo sharaxay jagada gudoomiyaha xaafadda lixaad ee magaalada Minneapolis xaafadaas oo meesha ay ku yeelaan moolasha ama suuqyada adeeg bulshada Soomaaliyeed ayna degan yihiin Soomaali aad u fara badan ayaa haddana waxaa nasiib darro noqotay in Maxamed Cali uu ku guul dareysay jagadaas tartankii uu galay bishii November haddaba daawadayaal waxaa wareysiga noo soo qaaday Maxamed Cali Wiilwaal oo ah tifaftiraha website-ka bartamaha.com wareysigiina sida uu dhacay balna la daawado حاكو كلفة مركينا أريد قولها ديجان كمينيابوليس. مقعدن الصومالي عاد بدن أيها ديجان وعلى جمارمان ما أنت أنا بريتو أنا بريد دمبابا هنا كقريب قالنا ترتنا ذا أما السيد كان نقدان أما فدرال كان نقدان ساوتو ده 6 سنة أيام هاي حق أيام ودن كلنا هاي مركا إن حبناها الدولة ده أما السيد كان فدرال كان كقريب قالنا هو very important وحيابها يوك قصبي إن ترتن كان أما وأنا بالله أما كقريب قالنا وحق أي تهاي dhibaatooyin ka badan oo dadkan aad ugu haysto iyo anagoon fahansaneen in aan dawladii aan ka mid noqon karno xaafadda aad u ordisay Minneapolis aad baa Soomaalidu u degan tahay xaafaday ahayd Soomaalida taageero badan ma ka heshay xaafadda waxay ahayd xaafadda lixaad in Minneapolisna waxay ka kooban tahay 13 xaafadood waa xaafad kamid ah xaafadda aan tartankeeda aan ka qayb qaatay dad badan baa iyo codeeyaha ilaa iyo dadka iyo codeeyay total marka la isku daro ilaa 500 qof ayaa iyo codeysay waan ugu mahad celinayaa xaafadan waa xaafada runtii Soomaaliya ugu badan ay degan tahay moolasha Soomaalida ay ku yaalaan masaajidada ay ku yaalaan iskuulada ay ku yaalaan sanaa wada dheer ay Soomaalida degan yihiin ay ku yaalaan marka runtii waa xaafad runtii aan isdhihi karo haddii aynan hadda ku guuleysan mustaqbalka inaan ku guuleysan doono insha Allah محمد maxaa sababay in ay meesha Soomaalidu ugu badan tahay oo qofka ugu horeeyo Soomaaliya dawladda isu sharaxa tahay aad ugu weyday inaad uga soo qaadid koob waxaan ugu waayay number 1 waxaan dhihi karaa in wixii aan ku cusubnahay oo ah qofka ugu horeeyay oo tartanka golaha deegaanka ka qayb galay ama city councilka taas ayaa number 1 ah waa wax bilaaw ah number 2 haddii aan wax ka sharaxo ninka hadda ku guuleystay waxyaabaha masaabaxay in uu guuleysto waxay tahay ilaa iyo 800 oo qof ama ilaa dad 700 oo qof oo membership ah ma laga yaabaa inay iyaduna wax ku dhintay xisbigaad ka sharaxnayd aan Soomaalidu xisbi ay taqaan aan ahayn waa la dhihi karaa inay qayb kamid ahayd qaybaha codadka qaar dadku badana waxay u codayaan xisbi ayaga oo fiirinaya xisbiga waxyaabuhu aaminsan yahay automatically dadka badana sida xaqiiqada Soomaalidu waxay isaga badan yihiin dad xisbiga dimuqraadiga ah inkastoo laakiin xaqiiqadu mar walba ay tahay dadka Soomaalidu runtii qof Soomaali oo tartamayo oo aan arkay aniga xataa xisbiga muhiim uma aha sida aan kala kulmay haddii qof Soomaali ah oo matalayo oo maaragtay dawladii ka qayb galaya arka runtii Soomaaliyeen bay ku taageerayaan dad badan oo ugu taageereen oo ugu mahad celinay waa gartay laakiin hadda la eego kuma guuleysan meeshii marka maxay kula tahay ba ciladaha ugu weyn hadda aad leedahay bay kaaga yimaadeen horta dadkii inaan dib ugu noqdo oo su'aalo oo aan iraahdo yaad u codeysay oo aan maaragtay wax ka barano waa very important waana talaabada hadda aan runtii in aan qaadayay okay mala mustaqbalka hadii ay isu sharaxid ama kulli waa soo sharaxi doontaa مثل حسبك قاعد شو جيسا مسواد بدلنا سبب بتكون نية ترتا. سؤال شو سؤال أقوله سرونتي أنا وحنا هي حسبك ديمقراطية يعني ها نقول جينا ترتمي جري عدين جري هذا لو حن رجال دون حسبك يقولون نقدر دون حسبك ديمقراطية هذا ترتك كيف قالوا إنك استو هذا الشرعي إن عدين اللي هذا عدين تا ما نكتي ranking choice oo dadku ay ka wada qayb gali karaan soo qofka xisbi ka imaan marka mustaqbalka waa ka fiirsan doonaa wadada ugu fiican ee xisbiga ugu fiican oo tartankiisa gali doona ma laga yaabo inay soo sharaxid magaalada tan ama dhulka kale kamid waxaan leeyahay muhiim ma aha inaan anigu mar walba sharaxo waxa muhiim ah dadku inay ogaadaan in laga qayb gali karo ama wixii la bilaabi karo anigu waan bilaabo wixii inaan soo noqdo suuragal dad iga fiican haddaan helo inaan tartanka soo galino waa muhiim marka waxaan leeyahay meesha waan deganahay citizen ayaan nahay waa inaan role ciyaarnaa oo aan dadka wax kula qaybsano wadankana iyo dadkina wax u qabano
dhibaatada halkan aan wax ka qabano tii wadankana aan wax ka qabano insha Allah marka waxaan leeyahay suuragal inaan soo